ciidamada militariga dalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea oo iskarabsanaya ay u jiraan caasimada Maqale ee deegaanka Tigreega in ka yar 45 kilomitir. jabka TPLF-na ma aha mid la qarin karo iyadoo saraakiishii ugu sarsareysay baa lagu laayay furimaha hore ee dagaalka. kulan waxaana wanaagsan idil ahaantiin badawadayaal meel baad nagala socotaan ku soo dhawaada xogaha ugu dambeeya dalka Ethiopia qodobada warkeena aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah ciidamada militariga dalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea ayaa la wareegay magaalada Shireero oo dhacda xuduudda gobolka Tigray iyo dalka Eritrea. dagaalkii ugu khadhaadha ayaa ka socdo 3 aag oo ku yaala deegaanka Canfarta halka qoomiyadda Amxaaraduna ay sheegtay in dhibaato xooggan uu dagaalka ka soo gaadhay. dhinaca kalena deegaankaasi uu ka jiro iska horimaad u dhaxeeya ciidamada Liyu Booliska, maleeshiyaadka Faano iyo ciidamada militariga dalka Ethiopia. madaxweynaha gobolka Tigreega Debretsion Gebremichael oo la aaminsan yahay inuu ka maqan yahay gobolka Tigreega ayaa fariin u soo diray shacabka Tigreega isagoo sheegay in shacabkiisu aysan marnaba ka quusanaynin dagaalka ay kula jiraan ciidamada militariga dalka Ethiopia. madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Samoei Ruto ayaa si la yaab looga hadlay dagaalada ka socda waqooyiga dalka Ethiopia. qoomiyadda Tigreega ayaa si weyn uga carootay hadalka ka soo yeedhay madaxweynaha dalka Kenya William Samoei Ruto. jamhadda xoreynta Oromia oo war-saxaafadeed soo saartayna waxa ay sheegtay in degmooyin ka tirsan deegaankaasi ay gacanta kaga dhigeen ciidamada militariga dalka Ethiopia iyagoo maalmihii u dambeeyayna tababaro iyo xalfado waaweyn ku samaysanayay deegaanada Wallaga iyo sidoo kale waqooyiga gobolka Shawa. ila wareedii hordhacoon helay ayaa sheegaya in dawladda Ruushku ay doonayso inay garab ka siiso dawladaha Ethiopia iyo Eritrea sidii loo jabin lahaa falaagada TPLF mar kalena gacanta loogu soo gelin lahaa magaalada caasimadda ee gobolka Tigreega ee Maqale. dawladda federaalka Ethiopia iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyadoo maalmihii u dambeeyayna ciidamada labada dhinac ee Ethiopia iyo Eritrea ay la kulmayeen jab aad u xooggan oo ay u geysteen ciidamada TPLF. sargaal sare oo hadlay militariga dalka Ethiopia ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay gacanta ku dhigi doonaan magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega halka warbixino kale oo lagu faafiyay baraha bulshada ay sheegayaan in ciidamada militariga Ethiopia ay ka tilaabsadeen waqooyiga gobolka Wallo iyo sidoo kale Gondar ayna u jeesteen dhinaca magaalada Maqale ee caasimadda gobolkaasi iyadoo dagaalada aagaasi ka socda ay yihiin kuwa aad u xoogan la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. Yaato ayay ka soo jeedo qoomiyadda Amxaarada ayaa ugu in Amxaaradu hubka ay dhigto dhinaca kalena ay garabsadaan walaalahooda Tigreega si loo jabiyo xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed taas oo ku macneeyay in Abiy Ahmed uu doonayo in uu shacabka Oromada kor u soo qaado halka Amxaarada iyo Tigreegan uu madaxa isu galiyay taasna aysan ahayn mid xilligan loo dul qaadan karo. magaalada Jigjiga ee caasimadda dawlad deegaanka Soomaalidana waxaa lagu qabtay nin dhalinyaro oo Soomaaliyeed kaas oo xidhay xijaab indha shareer iyo sidoo kale waxyaabaha ay dumarka qaataan. ciidamada Liyu Booliska iyo booliska magaalada Jigjiga ayaana gacanta ku dhigay ninkaasi iyagoo u taxaabay xabsiga dhexe ee magaaladaasi. dhalinyaro sheegtay in ay ka soo jeedaan beelaha Jidwaaq ayaa jawaab la yaab la u diray odayaasha beesha Jidwaaq ee maalmihii u dambeeyay shirarka ku qabanayay magaalada Jigjiga ee caasimadda dawlad deegaanka Soomaalida. shirarkaas oo ay kaga soo horjeedeen madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo xukuumaddiisa dhinaca kalena ay ku baaqeen shirweyne Soomaaliyeed. dhalinyaradan ayaa sheegay in odayaashu ay yihiin qowlaysato aan matalin masiirka bulshada magaalada Jigjiga. arrintan ayaana u muuqata in madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu qaaday tubtii xukuumaddii hore ee Cabdi Maxamed Cumar Cabdiilay. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warbixintan idinku soo gudbin doonaa. dhinaca kalena waxaynu ku eegi doonaa dhaqaale burburka ku dhacay dalka Ethiopia iyo maciishada dalkaasi oo cirka isku shareertay xilli abaaraha saameeyay geeska Afrika. dagaalka Ukraine iyo sidoo kale caabuqa coronavirus-na ay sabab u noqotay in dawladda Ethiopia uu dhulka gala dhaqaalaheeda dhinaca kalena shacabka Ethiopiaanka xaalad adag ay ku sugnaadaan iyadoo guud ahaanba la sheegay in dawladda Ethiopia ay bixin laadahay mushaarka shaqaalaha caadiga ee dalkaasi. waxaana stuudiyaha ula sugan saaxiibka Santiago inta badan soo indheeyay xaaladii ugu dambeysay dalka Ethiopia halka la kala marayo jabka soo gaaray ciidamada militariga Ethiopia kuwa Eritrea TPLF iyo sheegashada qabsashada magaalada Shireero iyo ahmiyadda ay u leedahay ciidamada militariga dalka Ethiopia in magaaladaas ay qabsadaan iyo sidoo kale fariinta ka soo baxday madaxweynaha gobolka Tigreega Debretsion Gebremichael. Santiago ku soo dhawow. aad iyo aad baad maasanta. Santiago colaadda dalka Ethiopia waxay gashay wajigii saddexaad dhinaca TPLF guulo ayay sheeganaysay maalmihii u dambeeyay inkastoo hadda ay aamustay dhinaca dawladda federaalka Ethiopia warbixin ka soo baxday waxay sheegeen in ciidamada militariga dalka Ethiopia kuwa Eritrea Liyu Booliska Amxaarada iyo maleeshiyaadka Faano ay la wareegeen magaalada Shireero dhinaca kalena ay hadda u soo jeesteen magaalada Shire. dhinaca kale waxaa la sheegayaa in dagaal xooggan uu ka socdo xuduudda gobolka Tigreega iyo Canfarta gobolada waqooyiga Wallo iyo Gondar dagaal ayaa ka socdo. bal maxaa ugu dambeeyay xaaladda dalka Ethiopia?
aad iyo aad baad umahadsan tahay daacadow ummadda soomaaliyeedna waa salaamaynaa. dagaalka dalka Ethiopia jahooyin badan ayuu ka socdaa, wax lagu soo koobi kara af maaha, balse meelaha ugu daran ayaan farta ku fiiqaynaa oo shacabkeena iyo sidoo kale dadka ina dhageysanaya dhageystayaasheena aanu bayaaminaynaa. dagaalka maalmihii ugu dambeysayba wuxuu u xooganaa oo ka socday waqooyiga Gondar iyo sidoo kale galbeedka gobolka Wallo iyo sidoo kale magaalada Shireero oo maanta ay gacanta ku dhigeen. magaalada Shire oo iyada naftirkeeda maalmihii ugu dambeysay dagaalo xoogan oo lagu kala nasanin ay ka socdeen ayaa horta ugu darayd iyo sidoo kale taba gobolka Waqooyi aan dhahnay oo iyadana run ahaantii TPLF saraakiishu ugu sarsareeyay ay ku waayeen. dhinaca kalena ay sheegeen kumanaan ka tirsan ciidamada militariga dalka Ethiopia in cagta ay mariyaan. dagaalka Shire ka socda iyo Shireero ka socdaba waxay ahaayeen dagaal la isku maaragtay adeegsanayay hubkii ugu dambeeyay ee noocyadiisa kala duwan, gantaalada dheereeya iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee wadanka Ethiopia lagu eedeynay dowladda federaalku inay ka soo gadatay dalka Turkiga ayaa qayb ka ahaa dagaalka. sidoo kale waxa qayb ka ahaa diyaaradaha MiG iyo sidoo kale diyaaradaha helicopterta ee militariga. dagaalkii magaalada Shireere wuxuu socdaba maanta waxay shaaciyeen ciidamada militariga dalka Ethiopia iyo kuwa militariga ee dalka Eritrea oo ayagana ku sugnaa goobta qaybna ka ahaa dagaalada halkaasi ka socda inay gacanta ay ku dhigeen magaaladaasina ay si buuxda ula wareegeen. run ahaantii sidaad wada ognahay baa horey waxaa loo shaaciyay oo ciidamada militariga ee dalka Eritrea waxay horey u shaaciyeen in taliyihii ama dhahnay afhayeenkii TPLF Getachew Reda lagu dhaawacay maalin ka hor halkaasi, balse warbaahinta Tigreegu ay warkaasi ka soo qaadeen mid waxba kaba jiraan. balse meeshaasi waxay ahayd meel mas'uuliyiinta ugu sareeyay iyo taliyayaasha ugu sareeya ciidamada Tigreegu iyo sidoo kale ciidamada militariga dalka Ethiopia ay ku wada sugnaayeen oo la sugahayay cidda gacan kuhaynteeda la wareegi doonto. maantana waxaa si buuxda ula wareegay ciidamada militariga ee dalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea oo isku dhaf ah ayaa la wareegay. waxaana la sheegay inay ciidamadu ka sii jaqaafiyeen meeshaasi oo u jahaysteen sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahayeen magaalada Shire iyo sidoo kale magaalada Maqale ee caasimada dowlad deegaanka Tigreega. waxaa la sheegayaa daacadow in ciidamadu hadii marba ay la wareegaan magaaladaasi ay u sahlanaan doonto in maaragtay dagaal xoogan ay ku qaadaan caasimada deegaanka Tigreega ee Maqale. waxaana la sheegay in meel kale oo ay ku istaagi doonaan aysan jirin, walow Tigreegu ay wadaan abaabulkii ugu dambeeyay oo madaxweynaha dowlad deegaanka Tigreegu ay ku dhow fariin u soo diray ciidamada iyo shacabka Tigreega si ay iskaga dhiciyaan una difaacdaan dhulkooda. taasina ay carcar horle iyo sidoo kale dhiirigelin ciidamada Tigreega iyo shacabkooda oo isku dhafan ay siin doonto oo iska caabin xoogan ay ku sameyn karaan ciidamada militariga Eritrea iyo kuwa Ethiopia ee iskarabsanaya ku siisiqaya qabsashada caasimada deegaanka Tigreega. dhinaca kale waxaa la sheegayaa dagaalkani waxaa sii kululeeyay baa la leeyahay saraakiil ka socotay wadanka Russia oo ayagu garab siinaya ciidamada militariga dalka Eritrea iyo kuwa Ethiopia doonayana in gabi ahaanba laga taqaluso kadib ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kale xukuumaddiisaba booqashadiisa daba joog ahayd iyo kulamadii ay la qaadanayeen mas'uuliyiinta ugu sareeya dalka Russia oo ay doonayeen in garab laga siiyo dagaalkani oo lala soo afjaro kooxahan iyo jabhadahan gudaha dalka Ethiopia ka dilaacay oo ay kamid tahay kow ka tahay TPLF ayna laba ku xigto jabhada xoreynta Oromia oo naftirkeeda saameyn xoog badan ku leh gudaha dalka Ethiopia dagaalo xoogan ka wada gudaha dalka Ethiopia. dhinaca kale iyadana waxay dagaalo xoogan ka socdeen oo ciidamada Ethiopia ay sheegeen inay jabiyeen waqooyiga Gondar iyo sidoo kale galbeedka gobolka Wallo ee deegaanka Axmaarada iyo dhowr furimood oo iyaga naftirkooda xuduudda deegaanka Canfarta iyo deegaanka Tigreega oo iyadana dagaalo xoogan ay ka socdeen oo labadii maalin ee ugu dambeysay aan lagu kala nasanin oo ay kamid tahay magaalada Abala Town iyo sidoo kale magaalada ama deegaanada ku hareeraysan oo labada dhinacba ay guulo kala duwan ka sheeganayeen inay ka gaadheen. balse ila xogagaaliye ay sheegayaan in dagaaladii ugu dambeeyay ay TPLF ku jabisay ciidamada militariga ee dalka Ethiopia iyo kuwa maleeshiyaadka ee deegaanka Canfarta iyo New Poliska oo iskarabsanaya. waxaa la sheegay dhinaca kale waqooyiga Gondar inay ka gudbeen ciidamo aad u tiro badan oo xoojin doono ama cadaadis ku keeni doono ciidamada Tigreega iska caabin kala hortagi lahaa ciidamada qabsaday magaalada Shireere qabsaday isla markaana la doonayo in lagu kala jabiyo ciidamada Tigreega lagu kala jabiyo si ciidamadaasi ay ugu fududaato qabsashada magaalada Maqale ee hore ku soo sheegnay. dhinaca kale daacadow sida la ogsoon yahayba dagaalka waxaa la sheegayaa inay wax ka bedeleen diyaaradihii duuliyaha aan lahayn ee dalka Ethiopia ay ka soo gateen ama ay ka soo qaateen wadanka Turkiga iyo sidoo kale saraakiisha sarsare ee khuburada dagaalka ee dalka Russia uga imaatay
qaatay ayaad moodaa in dagaalka ay wax ka bedeleen balse dhinaca kale markii laga eego waxay TPLF soo bandhigayeen saraakiishii ugu sareysay ciidamada dalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea inay ku dileen dagaaladii ugu horeeyay isla markaana ay qabsadeen ciidamo aad u tiro badan oo maalmihii ugu dambeeyay ciidamada Tigreegu ay soo bandhigayeen inay ku soo qabteen dagaaladii ay la galeen ciidamada militariga dalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea Santiago markaynu ka soo noqono xaaladda dagaal ee ka tagan gobolka Tigreega dalka Eritrea iyo Ethiopia madaxweynaha gobolka Tigreega Debretsion Gebremichael oo la sheegayay in maalmihii u dambeeyay uu ka maqnaa magaalada Maqale dhinaca kalena uu ku sugnaa magaalada Khartoum ee dalka Suudaan fariin calaacal iyo sidoo kale wantaata aad u xoogan ayuu soo diray dalka Ethiopia iyo sidoo kale TPLF waxa uu sheegay in aysan marnaba ka quusanaynin dagaalka ay kula jiraan ciidamada militariga Ethiopia kuwa Eritrea iyo difaaca gobolka Tigreega bal maxaa loo turjumi karaa warkan ka soo baxay madaxweynaha gobolka Tigreega xilli Tigreegu ay ku baaqayeen xabad joojin hal dhinaca kalena dawladda federaalka Ethiopia arrintaasi ay ku gacan saydhay oo bataata maganafka ay u doorto ay diiday horta madaxweyne Debretsion horta wadanka waa uu ka maqan yahay dagaalkana waa xaaladiisa uu ka warqabaa quwadaha isbiirsaday ee isbahaysanaya ee dagaalka kula jira ciidamadooda waa uu og yahay ciidamadu intii dadaalkooda way sameeyeen magaaladan hadda maanta gacanta laga qabtay ee istiraatiijiga ee dhacda xadka dalka Eritrea iyo Tigreegu ay wadaagaan muddo badan ay ku dagaalahayeen oo dhowrkii bilood ugu dambeeyay maalin laga nasanin Tigreegu waxay ku weyday ciidamadii ugu badan ay ku weyday shacab badan ayaa lagu dhameeyay qabsashadani kulayl badan kadib ay ciidamada naftirkooda Eritrea naftirkeeda dhibaato xoogan ayaa lagu gaarsiiyay waa uu og yahay xaaladda iyo quwadaha isbiirsaday ee dagaalka kula jira waa uu og yahay dawladan oo dhisanayd oo ciidamadeedu ay ka badnaayeen shacabka deegaanka Tigreega inta uu yahay ayba ka sii badnaayeen ayaa horta dagaal kula jira dhinaca kale to dawladii dhanayd ee Eritrea ayaa xoogeeda isku geysay oo ahayd dawlad military ah 30 sano ugu dambeeyayna la asaasayay oo ciidamo iyo xoog la dhisahayay la rabay in lagu dagaalamo Ethiopia hadii ay dagaal kula soo maartay ay ku soo qaado isla markaan ahaa ciidamadii Ethiopia ay ka qaadi weyday magaalooyinka ay ka mid tahay Badama ama gobolada dhacaba dhinaca xadka Eritrea iyo Tigreega u dhaxeeya ee muddada badan Ethiopia ay isku haysteen dalka Eritrea ay isku haysteen marka hadalada uu Debretsion uu soo dhigay madaxweynaha Tigreega aan dhahnay uu soo dhigay waxa weeyun gubaadin iyo sidoo kale dhiirigelin shacabka Tigreega iyo ciidamada uu u sameeyo dhanka kalena uu beesha caalamka tusinayo in wali la xasuuqayo oo lagu soo duulay deegaanka Tigreega lagu soo duulo ay ku soo duuleen ciidamada Tigreega ay ku soo duuleen waxa xusid mudan in maanta qabsashada magaaladaasi ay niyad jab weyn u keeni doonto shacabka Tigreega iyo sidoo kale ciidamada Tigreega isla markaana dhinaca kale ay dhiirigelin u noqon doonto ciidamada militariga dalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea oo muddo badan ku haamahayay soo afjarida dagaalka lagu jiro TPLF iyo qabsashada magaalooyinka waaweyn ee deegaankaas dhanka kale Santiago jamhadda xoreynta Oromia waxay soo bandhigtay ciidamo kumanaan ah oo ay tababar ugu soo xidhay gudaha gobolka Oromia sidoo kale waxay sheegeen in degmooyin muhiim ah oo istiraatiiji ay kala wareegeen ciidamada militariga dalka Ethiopia waxaana la sheegayaa in cabsi aad u xoogan iyo khalkhal uu soo wajahay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo maamulka deegaanka Oromia bal deegaanka Oromia laftigiisa maxaa ka jiro daacadu sida ogtahayba jabhadda xoreynta Oromia labadii sano ee dagaalka uu socday waxay iyagu wadeen dhaqaaq xoogan ciidamo ay soo tababareen iyo sidoo kale deegaano ay qabsanayeen oo ay ka qabsanayeen ciidamada maleeshiyaadka deegaanka Oromada ee maamulka Oromada ka amar qaata iyo militariga dalka Ethiopia qaybo kaga sugan gudaha deegaanka Oromia deegaanadan ay soo bandhigeen ay qabsadeen waxay sheegeen jabhadda xoreynta Oromia in ay hadda gacanta ku hayaan 14 degmo oo ka tirsan deegaanka Oromia ka wada tirsan waxay sidoo kale soo bandhigeen dhowlatus military oo yaab isla markaana niyad jab ku dhaliyay taliska ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxay marar badan sheegeen in caasimada aysan ka dheereen isla markaana ay qabsan doonaan caasimada Addis Ababa balse waxay u muuqataa mid aad moodid in iyagu ay dhaqaaq iyo xawaare xoogan ay ku socdaan oo halis gelin karta caasimada Addis Ababa ee dalka Ethiopia dhinaca kale to waxay ila wareedyo ay sheegayaan oo lagu dhaliilay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in xoogiisi ugu badnaa iyo fikirkiisa iyo maskaxdiisaba uu galiyay la dagaalanka Tigreega isla markaana uusan dhinaca jabhadda xoreynta Oromia uusan dhowrin taasi oo lagu macneeyay in uu soo dhisayo shacabka Oromia oo uu taageersan yahay isla markaana uu doonayo in la isku baabiyo qowmiyadda Axmaarada iyo Tigreega la isku baabiyo oo ciidamadii militariga dalka Ethiopia kuwii jabhadda Fano ciidamada New Police deegaanka Axmaarada kuwa canfarta maleeshiyadyo kale oo uu ka soo qaatay deegaanada dalka Ethiopia uu meesha isku geey iyo waliba ciidamada militariga Eritrea oo hore ku soo sheegnay marka mas'uuliyiinta qaarkood ayaa waxay qabaan
wadaan in isagu uu doonayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inuu isku baabiyo qowmiyadda Axmaarada iyo Tigreega oo mar waliba ayagu isku cudud sheegta isla markaana doonaya in mar walba xukunka ugu sareeya labadoodu ay isku bedelaan oo ayagu mid walba midka kale uu sheego ana boqortooya oo kursigani mudan ana Ethiopiana oo Ethiopia iskale marka taasi ayaana moodaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kubadda uu ciyaarayo inuu doonayo horta labadan qowmiyadood ee Ethiopia wareeriyay ee sanadaha badan ee boqolaalka sano soo xukumaya gabi ahaanba horta ayagu ay isku basbeelaan oo uu tirtiro isla arinta ka shanqadhisay Santiago Lidatu Ayelo oo ah siyaasi iyo wariye u dhaqaaqa xuquuqda shacabka Amxaarada waxa uu sheegay in hadda kadib aan loo baahnayn in shacabka Amxaarada iyo Tigreegu ay xabad iyo dagaal iskaga hor imaadaan dhinaca kalena Amxaaradu ay banayso furimaha halka Tigreegana looga baahan yahay in ay joojiyaan ugaarsiga beegsiga iyo sidoo kale dilalka ay u geysanayaan ciidamada liyu booliska Amxaarada iyo ciidamada ay gacanta ku dhigeen Axmaarada Tigreegu waxa ka soo baxay baaqiyo la xiriira in Abiy Ahmed uu doonayo labadii boqortooyo Ethiopia muddada dheer ka soo xukumaysay inuu iska baabiyo dhinaca kalena uu baarfileeli ka dhigo qoomiyada Oromada adiguna hadda waxaad ka shaqaynaysaa Jamhadda Xoreynta Oromiya in Abiy Ahmed laftigiisu uu dan ka leeyahay siyaasadeed oo uusan doonaynin inuu weerar iyo dagaal ku qaado bal waa maxay baaqiyadan ka soo baxaya Amxaarada iyo Tigreega iyo sidoo kale arintan aad kaga shanqadhisay Oromada iyo jamhadeedii Abiy Ahmed horta sidaad ogtahayba dhaqaaqyada ay Jabhadda Xoreynta Oromiya ay wadaan ma wadaan TPLF iyo Tigreega ciidamadoodu ma wadaan sababtoo ah deegaanada ugu badan ee Oromiya waxa gacanta ku haya Jabhadda Xoreynta Oromiya ayaa gacanta ku haya boqolkiiba 90 taageero shacab ayay haystaan saraakiisha ugu sarsareysay ciidamada militariga dalka Ethiopia waxay ku laayeen si sabab la'aan ay ku laayeen oo dagaal aan lagula jirin intay maalin cad soo weerareen saldhigii ayay teeqa qabteen waliba gowraceen dhinaca kale to magaalada caasimadda ee dalka Ethiopia Addis Ababa ayay korkeeda intaasoo arrimood oo ay sameynayaan iyo xasuuqi dhowrka boqol ee qof ee ay xasuuqeen Jabhadda Xoreynta Oromiya ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kama uusan hadlin isla markaana wax ciidana oo kala hortagay ma jirto taasi ayaana cadeynaysa in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu doonayo qowmiyadda Oromada in uu baarka u firo isla markaana iyaga iyo jabhadahoodu ay iswataan oo raali uga yahay taageerida iyo sidoo kale garab istaaga shacabka Oromiya ay u muujinayaan Jabhadda Xoreynta Oromiya ayaad moodaa inuu la shaqeyn leeyahay oo doonayo gabi ahaanba in horta ay isku basbeelaan oo uu tirtiro qowmiyadda Axmaarada iyo qowmiyadda Tigreega oo ayagu xilka isku ceyrsada mar waliba oo midba midka kale ku eeday in asagu xilka uu ka mudan yahay baalxoofta iyo sidoo kale xiniya dagaal ay ka jiraan oo weligood gobollo dhaca dhinaca Tigreega iyo Axmaaradana ay marar badan isku dagaalayeen oo isku haysteen marka midani waxa weeye mid maalmihii ugu dambeysay soo shacbaxday mas'uuliyiinta ka aragti duwan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kale shakhsiyaad caan ah oo dalka Ethiopia aad looga yaqaano ay baraha bulshada soo dhigeen oo ay kaga cabanayeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in qowmiyadan uu tooriyaha iyo midiyaha iyo qoryaha iskugu dhiibay ee uu doonayo in la tirtiro inuu siyaasad kale yahay isla markaana uusan eegaynin jabhadaha kale ee gudaha dalka Ethiopia ka dagaalamaya marka aynu intaas kaga imaano xaaladda dalka Ethiopia dagaalada ka socda Jamhadda Xoreynta Oromiya TPLF Eritrea iyo Ethiopia magaalada Jigjiga caasimada dowladda deegaanka Soomaalida waxaa la sheegayaa in ay ka taagan tahay zamxad siyaasadeed khilaafyo iska hor imaadiyo shalay warbixinadeena waxaynu ku gudbinay in xafiiska xisbiga FEB la weeraray koox isla xisbiga FEB dhexdiisa ka dhaxadashay waxay sheegeen in gudoomiyihii hore uu talada marooqsaday dhinaca kalena xafiiska iyagu rarteen oo hay'adaha ammaanka ay waraaq sharci u geysteen dhinaca kale magaalada Jigjiga habeenkii xalay waxaa lagu qabtay wiil xidhay indho shareer iyo sidoo kale xijaab isuna soo yeelay waxyaabaha dumarku ay waxa weey sida khaaska u leeyihiin sidoo kale waxaa la sheegayaa in beesha Jidwaaq oo maalmo ka hor shir qabatay ay dhalinyaro beeshaasi ka soo jeeda ay aflagaada cay iyo jarrimo u geysteen odayaasha dhaqanka ee beelaha Jidwaaq dhinaca kalena ay ku sheegeen inay yihiin kuwo caadaqaatayaal oo aan matalin masiirka beeshaasi Mustafa Cagjar waxa lagu eedeeyaa in uu qaaday tubtii xukuumadii hore ee madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ama Cabdi Ilay hadba Soomaalidu ka u taqaanaba bal Jigjiga maxaa ka cusub waa maxay dareenka Jigjiga xilligan ka taagan iyo xaaladaha iska horimaadka horta sidaad ogtahayba daacado Jigjiga waxay noqotay 4 sano xilligii Cagjar iyo isbedelkii siyaasadeed ee dalka Ethiopia waxay ahayd meesha Soomaalidu ay ugu jeceshahay ee ay Soomaalida dhanayda qurba joogta iskugu tagtay isla markaana koobkeedii shaaha 10 riyaal aha uu tagay 50 riyaal uu tagay taasi micnaheedu waxay ahayd isbedelka iyo Soomaalidu sida ay u jecelayd in isbedel uu wadanka ka dhaco oo xukuumadii hore ee Cabdi Ilay iyo waxyaabihii lagu yaqaanay ay filahayeen irta inuu isbedel ku dhacay isla markaana wanaag fiican uu ka soo jeedo arintii ay shacabku horta filahayeen waxa saxmadan dhaliyay in madaxweyne
Mustafa Cagjar uu ku dhaqaaqay falal aad u adag oo shacabku horeyba ay dawladii hore ku dhaliilahayeen isla markaana aysan ahayn waxyaabihii ay filahayeen ee loogu laabtay wadanka qurba joogtiisa dhanna ee dawlad deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliweyn meel walba joogtaba ay magaalada Jigjiga iskugu tageen Mustafa Cagjar falalka uu ku dhaqaaqay waxa kamid ahaa cuburin cagajugleyn burburin xarig waxa weeye dadka un habeen madow intii loo soo daatay la afdu hayo ayaa kamid ahay waxyaabaha uu ku dhaqaaqay taasi ayaana saxmadda siyaasadeed iyo sidoo kale in shacabka magaalada Jigjiga ay dhahaan tani maana moodaynin oo sidan maana filaynin ayaa horta sabab u noqotay xisbiyada mucaaradku waxay ka digeen waxa maanta taagan iyo kacdoonka shacab ee magaalada Jigjiga ka taagan ayay mar badan ka digeen oo ayagana waxa loo ataagayo ee loo beegsanayo ee xafiisyada loogu daadanayo waxa weeye waxyaabihii ay ka digayeen kaliya ay lahaayeen xukuumaddu arintaasi tii hore taas ku burburtay tani ha ka joogto waxyaabihii fiicnaa ee xukuumadda madaxweyne Mustafa Cagjar loo jeedinayay ayay horta madaxweyne Mustafa ayuu ka xanaaqay taasi ayuuna ciidamada ka amar qaatay isaga oo ugu soo diray inay xafiisyada u soo daataan xisbiga feeb daraad ay ahayd markii intii xafiiskiisa loo dhacay qalabkii la urursaday oo sabab la'aan waxa weeye alaabtiisii iyo qalabkiisii intii la burburiyay oo maaragtay xafiiskii waxyaalo loo geystay in alaabtiina la rartay oo stationka la geeyay dhinaca kale waxa iyadana taagneed mas'uuliyiin intii loo cagajugleeyay wadanka ka soo cararay hadda waxa socda beegsiga ugu weyn ee magaalada Jigjiga ka socda odayaashan dhaqanka waxay ka digeen Mustafa Cagjar inuu uu sameeyo horta beegsi uu ku hayo mas'uuliyiinta uu isleeyahay way ka aragti duwan yihiin dawlad waa la dhaliili karaa waad ogtahay oo shaqsigu si nabdoon ayuu adkaartiisa uga dhiiban karaa baraha bulshada arintaasi ayaad moodaa Mustafa Cagjar inuu dulqaadkiisu uu yar yahay oo uu dulqaadan waayay isla markaana uu beegsi ku hayo mas'uuliyiinta isaga uu isleeyahay way ka aragti duwan yihiin odayaashu waxay ka digeen in Mustafa Cagjar falalka uu ku dhaqaaqay ay waxyeelo iyo dib u dhac u keeni doonto dawlad deegaanka Soomaalida isla markaana uusan nabad buurta loogu seexanaynin hadii arintaasi ay ka joogi waayaan oo daacadow dhalinyaro uu Mustafa Cagjar lacaga soo siiyay isla markaana uu soo abaabulay oo ahaa fal qorshaysan oo maalmihii ugu dambeeyay tan iyo shirarkii odayaashu ay ku baaqeen ee magaalada Jigjiga ka qabsoomay la diyaarinayay ayaa maanta magaalada Jigjiga ayagana ku sheegay in odayaashu ay dhuuni qaatayeen waana mid iyadana ay weligiiba dargigu u sameyn jiray isla markaana lagu yaqaanay xeeladaha dalka Itoobiya ahaydna in wiil iyo aabihii la isku horkeeno oo wiilka uu aflagaadeeyo si caasinimo aabihii uu aflagaadeeyo dhalinyaradani waa dhalinyaro reer Jigjiga ah balse waxay ahaayeen dhalinyaro la soo diyaariyay isla markaana ciidamada new booliska xiriyahooda lagu soo tababaray oo loogu talagalay inay aflagaadeeyaan odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta ka aragti duwan madaxweyne Mustafa Cagjar isla markaana u doodahaya xuquuqda deegaanka iyo midnimada dawlad deegaanka Soomaalida iyo dhinaca kale diidahayana dulmiga lagu hayo shacabka dawlad deegaanka Soomaalida oo adigaba aad ogsoontahay in attack iyo sidoo kale beegsi gaar ah lagu hayo shakhsiyaadka madaxweyne Mustafa Cagjar ka aragti duwan isla markaana magaalada Jigjiga ay noqotay xaaladeedu xaalad maanta aan deganayn oo ka sii daranba xaaladii madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar daawadayaal guud ahaan xaaladda dalka Itoobiya ayaa laga soo sheegayaa inuu ka jiro sixir barar iyo sidoo kale in lacagta dalka Itoobiya ay bataatanba dhulka ku dhacday cunno yaraan saameynta abaaraha geeska Afrika saameeyay caabuqa coronavirus dagaalka Ukraine iyo sidoo kale colaadda ka holaaqaysa guud ahaanba dalka Itoobiya iyo midda hadda ugu weyn ee waqooyiga dalkaasi ayaana la sheegayaa in arrimahan oo dhan ay sabab u yihiin $100 ee lacagta Mareykanka ayaa la sheegayaa in xuduudaha dalka Itoobiya maanta uu ka marahayo in ka badan 10,000 iyo 100 bir oo lacagta Itoobiya taas oo shacabka Itoobiyaanka ay ka muujiyeen walaac aad u xooggan halka maciishada cuntada iyo saliidana cayrka isku shareertay dawladda dhexe ee federaalka Itoobiya deegaanada kala duwan ee dalka Itoobiya ayaa iyaguna la sheegayaa in ay bixin laayeen mushaharaadkii shaqaalaha caadiga ah ciidanka iyo sidoo kale hay'adaha dawliga ah guud ahaanba xaaladda dalka Itoobiya ayaa maalinta ka dambaysa ka sii daraysa dagaalada TPLF iyo dawladda dhexe u dhaxeeyana cirka ayay isku shareerayaan magaalada Jigjigana xaalad buuq iska horimaad iyo sidoo kale in xukuumaddu ay tubtii hore ee xukuumadii ka horeysay ee Cabdi Maxamuud Cumar ayaa la soo warinaya inta ayaan ku soo koobaynaa warkeennii fiidnimo aan ku eegaynay xaaladii ugu dambeeyay dalka Itoobiya daawadayaal intaan ku kulmayna warkan lamid ah waxaan kaga tagi doonaa sidaas iyo nabadgelyo.